soo dhawaada dhammaantiin maalin wanaagsan dadka ay daawanaya dadka dhageysan doona fideogan waxbaa idinku weydiinayaa sida in la tahay anigana waa waxaan isweydiiyey kolleyba unu malaynayo dan inay ugu jirto dadkayaga Soomaaliyeed taasoo ah muddo aan dheerayn wax ir ka hor waxaa loo dabaaldegay bisha carafada oo daaran maalmo ay ku jiraan cibaado ah kabacdina dadku ay u dabaaldegaan ciid markaana ay qalaan xoolo nool marka waxaan isweydiiyey qof kasta oo kabcada taga ama xajka taga oo soo xajinaya waxaa looga baahan yahay maalinta dawaafka la marayo oo meesha dhagax lagu dul wareegi doono in uu bixiyo maxaa la dhahaa inuu neef baa looga baahan yahay inuu qalo markaa Sacuudi Carabiya waxaa lagu bireeyaa xoolo aad iyo aad u fara badan intaasoo kun oo xayawaan baa lagu bireeyaa oo geel iyo arab iskugu jira laga yaabaa inay yihiin markaan ma hubo inuu geel ku jiro laakiin kolay xoolo nool baa lagu qalaa haddaba waxaan isweydiiyey maadaama Soomaaliya jaamacatul carab ay ku jirto maxaa dowladda Soomaaliya iyo siyaasiyiinta Soomaaliya may sameeyaan codsi u diraan xoolaha in Soomaaliya laga gato oo lacagta Soomaaliya loo diro isla xoolaha Soomaaliya laga gaday oo la dirayna in Soomaaliya gudaheeda lagu qalo ulxiyada waxa loo yaqaano Soomaaliya gudaheeda lagu qalo oo qof kasta uu xajiyo uu u baahnayn inuu ku qalo neef xoolo ah Sacuudiga maadaama inuu u baahnayn oo ay haystaan shidaal iyo waxa xoolaha ay qalaan way tuuraan dadka Soomaaliyeed marka laba faa'iido baa u soo hoyan lahayd haddii taa la sameyn lahaa mid waa mid ah in xoolihii laga iibsaday oo lacagta Soomaaliya ku noqonaysa dhaqaalihii dadka xoolahoodii ayaga ku noqonaysa mid waa mid labaad oo xoolihii la tuuri lahaa ayaa waxa lagu qalayaa Soomaaliya oo qofkina uu ka dhacayaa qofkii xajinaya xajkiisa in neefka Soomaaliya lagu qalo oo loo qalo oo neef walba la qalay loo diiwaan galiyo loo sheego inta qof oo xajisay oo lacagtooda la diray inta xoolo loo qalay in marka loo sheego oo way ka dhacaysaa xoolihii la qalayay waa loo qala xoolihii marka labada faa'iido beehille dowladda Soomaaliya maadaama ay ku jirto jaamacatul carab la jaamacatul carab waxba kama faa'iidno marka fiirisid waxa la isku dhaafay siyaasiyiinta caqliga leh waxbay keenaan dunida moogtahay Sacuudi Carabiya hadda anaga hadii qof waaridkaayo uu dhinto qofkii oo dhintay baa u xajin karaysaa lacag baa waaridka waxa u niyoosanaysaa inaa waaridka oo dhintay inaa lacag ka bixisid oo aad xajka adigu tagtid ama qofka inaa lacag siisid oo u xajiyo moogtahay lacagna way helayaan Sacuudigii oo lama dhahayo qofkii camalkiisa ogna waxa la dhahaa dadka camalkoodii markuu qofku dhinto camalkiisa wuu dhamaaday haddana wali camal baa loo sameynayaa oo ah xajkii oo kala in lacag laga sii bixiyo qof dhintay oo kala marka maxaa diidaya in anaguna sidaa aan sameyn karno si dadkeena faa'iido u helaan tusaale ahaan oo kale markuu corona dhacay oo kale waa la diiday dadku inay isku tagaan oo maxaa la dhahaa oo isdhex galaan cudur baa imaaday markaas siyaasiyiinta Sacuudiga way fakareen ilaa lacag baa ka soo gashay fara badan inay dadku soo xajiyaan marka waxay dhaheen waxa loo xajin karaa si digital ah yani si electronic ama digital ah mobilka adoo jooga baa lacag diraysaa marka saas buu xajka kaaga dhacay qof xaajiyada ama xaajiya ayaa tahayba haddii aad lacag aad bixisid arrin noocaas oo digital lagu xajinayo ayay keeneen intii uu jiray coronaviruska marka waxaan la yaabanahay siyaasiyiintu dadkooda way u faa'iideysaa tan waxay la tahay fariina ugu diriyaa siyaasiyiinta inay kasoo dhameeyaan dhiilkaas oo dhammaan xujayda imaan doonta sanadka dambe 2026 xujayda imaan doonta iyo Sacuudiga xajin doona lacagtooda in xoolaha ay ka gataan Soomaaliya lacagtana loo diro Soomaaliya isla xoolahaasna lagu qalo Soomaaliya oo dadka Soomaaliyeed ay cunaan maadaama ay sadaqa tahay qofkan xaramku maray neefkan uu Sacuudiga ku dhex qalana ma uu cuno dad masaakiin sadaqa cunta mararka qaar lama cunay waaba la tuuraaba oo uma baahno oo cunto ku filan bay haystaan haddaba marka waa in Soomaaliya lacagta loo diraa sidaa u iri xoolahana Soomaaliya laga gataa
isla xoolihii la gatayna soomaalidu waa inay qashaa oo markaas loo niyeysto ilaa waxaan maxaa la yidhi inama alcamaalu biniyaa acmaashu waxay ka ahaatay niyadda xadiiskaas baynu adeegsan doonaa marka qofka waa xaaji wuu xajiyey xoolihiisa neefkiisina waxaa lagu qalay magaalada xamar ama baydhabo ama boosaaso ma garanaysaa dadkii baa loo kala qaybinaya waxaana cunaya dadkii u baahnaa ee soomaaliyeed eena ka mid ahaa jamaacatul carabka ee dadka afrikaanka ah halkaasna waxaa soo gelaysa dhaqaalihii baa usoo noqonaya dadka soomaaliyeed xoolihii laga gatay lacagtii waxay gelaysa soomaaliya waxayna helayaan xoolo ay cunaan sacuudigana waxaa ka dhacaysa arrintii ahayd ay sameynayeen oo doqonnimada ahayd oo ah in xoolo layska bireeyo oo cidna aysan cunayn oo qashinka lagu daro dad baa u cunaya abaalna uga haya marka saas baan fariintaas baan waxaan u dirayaa siyaasiyiinta iyo qof kastoo soomaaliya oo caqli leh saasaan u sheegayaa oo waa in wax la kala faa'iidaystaa dadkeenu markasta jacayl bay waxay u hayaan carabta oo ma garanaysaa iyagoo u jecel inay islaam yihiin laakiin carabtu wax noo dan ah noogu jirta oo aan ka helno ma jirto si haddii loo fiiriyo oo aan ahayn inay maaragta isku kaayo hubeeyaan oo nacaybna dhex dhigaan oo dhibaato ay ka jirto oo diin ahaan diin la isku haysto dadka isku laynayaan laakiin siyaasiyiinteena baa waxaa loo baahan yahay maadaama ay jaamacatul carab ku jiraan in ay arrintan ay geeyaan oo waxaan rajeynaya in laga aqbali doono runtii haddii aan laga aqbalin marka waxa weeye qof aan waxba kuu ogolayn oo wax u ogashahay oo markasta asaga waxa u ogashahay runtii waxaan rabaa inaan weydiinteeda ku darayaa soomaalida xujayda ah oo xajka aada oo dhammaan geyga soomaalida ka kala taga ama jabuuti ka taga ama dhammaan geyga soomaalida ka taga ayagu ma ay sameeyaan markay xajinayaan neefkooda ay gowrici doonaan ma xajkay ka iibiyaan oo ku gowracaan dhexdiisa mise soomaaliyay lacagta u dirsadaan oo neefka loogu gowracaa haddaa og tahay qof familkaaga oo xajiyey iyo waxa uu sameeyey markuu xajiyey maxaram ma wuxuu ka gatay sacuudi carabiya neef ka dhex gatay oona uu ku bireeyey mise soomaaliya uu ka gatay oo ku bireeyey asagoo sacuudiga jooga way fiicnaan lahayd inaad ila wadaagtid fideogaana way fiican tahay inaad dadka u geysid waa mahadsantihiin wanigoo ka hadhayna waa aragtidayda si dadkeenu ay u faa'iidaan bishaas laga wada faa'iidaysto dhaqaale iyo ay u helaan xoolihii la daadinayeen ay u cunaan ayagana xoolaha laga gato waa mahadsantihiin